fadhiweynaha mudanayaasha aqalka golaha wakiilada oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga oo uu shir gudoominayo gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa fadhiweynuhu u ballansanaa qacanu taagida ansixinta odoroska miisaaniyad sanadeedka 2014 oo fadhiyadii u dambeeyay ay xildhibaanadu dood ballaaran ka lahaayeen kadib markii ay golaha hor keeneen hoosaadka dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda ee golaha wakiilada shir gudoonka golaha wakiilada ayaa xildhibaanada u akhriyay qodobada iyo nuxurada ka soo baxay doodaha xildhibaanadu ka lahaayeen ee ku saabsanaa miisaaniyadda ay ku falanqeynayeen iyadoo seejoodin talooyin iyo go'aamo kadib cod gacan taagida loo qaaday ansixinta odoros miisaaniyad sanadeedkii ugu ballaarnaa ee golaha wakiilada la hor keeno madasha golaha wakiilada ayay fadhiyeen 60 mudane 59 xildhibaan ayaa cod aqlabiyada ku ogolaaday in la meel mariyo odoroska miisaaniyadda sanadka hal mudane ayaa ka aamusay cidina ma diidin gudoomiyuhuna muu codayn sidaana waxaa ansax ku noqotay miisaaniyadda qaranka ee sanadda 2014 oo dhawaan ay golaha hor keeneen mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda shirgudoonka golaha wakiilada ayaa ansixinta kadib xildhibaanada ku wargeliyay in kalfadhigii caadiga ahaa ee golaha wakiiladu uu xidhan yahay oo sidaa ku dhamaaday goluhuna uu fasax gali doono muddo 8 toddobaad ah